dhegaystayaal waa qaybteennii labaad ee sheekadii caaqilkii weynaa ee abwaan siyaad dhiridhoob. Waxaan ka sheekayn doonnaa qisada labaad ee laga diiwaan geliyey abwaan siyaad qaasim dhiridhoob. Qisada labaad waa qisadii hasha. Maadaama uu siyaad ahaa nin mudaawaadka yaqaana, mucjisooyin badanna laga hayo, ayaa sida caadada bini'aadamku tahayba waxaa jiray dad aan siyaad u aqoonsanayn ama u quuri waayey caqliga Eebbe ku manaystay. Raggii iyagu su'aasha ka qabay caqliga lagu sheegay siyaad ayaa go'aansaday in ay xujeeyaan, waxa ayna soo kaxeeyeen hal, isla markaana masaar ayay afka uga soo rideen una soo kaxeeyeen meeshii uu joogay siyaad. Heerka ay nimanka hasha watay ka taagnayd in ay ku beeniyaan siyaad waxa uu sheeganayo meel fagaaro ah, waxa aad ka garan kartaa niman reer miyi ah oo go'aansaday in ay neef dhan u qisaariyaan xujo darteed. Markii ay hashii u keeneen siyaad ayaa waxa ay ku yidhaahdeen, siyaadow, noo sheeg hashu waxa ay qabto oo ay la cabaadayso. Siyaad waxa uu u yimid hashii, waxa uuna bilaabay in uu fiirfiiriyo dhan walbana kala wareego, waxa uuna ka waayey wax nabar ah ama jab ka muuqda hasha. Waxa kale uu ka waayey astaamaha lagu garto cudurrada kale ee ku dhaca geela sida shubanka, kudka, cadhada, ilqoodka, saanreedka iyo dhugatada iyo wixii la mid ah. Markii uu muddo ku wareegay ayuu yidhi, hashu maankaygay gadaye ma masaar bay liqday. Waxaa nimankii xujada maleegay argagax ku noqotay sida uu siyaad u sheegay waxa ay ku sameeyeen hasha, halkaana uu ku fashiliyey shirqoolkoodii. Halkaas ayay dadkii oo dhan ku qireen garaadka Eebbe ku manaystay siyaad dhiridhoob, hashiina lagu gowracay. Waxaa kale oo halkaas ka hirgalay mahmaahdii uu bixiyey siyaad ee ahayd, hashu maankaygay gadaye ma masaar bay liqday, oo ilaa iyo hadda dhaqan gashay. Qisadeenna saddexaad waa qisadii xog waran ee laga diiwaan geliyey caaqil siyaad. Sideedaba wakhti kasta waxa uu leeyahay dad u gooni ah oo laga waraysto wixii markaa taagan ama horay u dhacay. Siyaadna xilligiisii wuxuu ka mid ahaa dadka iyagu looga dambeeyo fikradaha iyo oraahyada taariikhiga ah. Dadka caaqiliinta ah waxaa badanaa la weydiiyaa su'aalo fara badan oo ulajeedkoodu yahay in laga faa'iido ama laga reebo oraahyo, maahmaahyo ama murtiyo taariikhda gala. Maalin iyada oo goob shir ah la joogo loona wada dhan yahay ayaa waxaa siyaad la weydiiyey su'aalo si bal looga faa'iidaysto caaqilka. Su'aalaha la weydiiyey waxa ay ahaayeen kuwo si toos ah iyo si dadban u quseeya dadka oo dhan. Inkastoo sheekadani dhacday in ka badan 400 oo sano ka hor, haddana su'aalaha la weydiiyey iyo jawaabaha uu siyaad ka bixiyey waxaa laga yaabaa qaar ka mid ahi inay ku quseeyaan ama aad la kulantay. Waxayna su'aalihii u dhaceen sidan. Dadka ayaa weydiiyey siyaad, bal ka warran samaanta iyo xumaanta ragga. Siyaad wuxuu ku jawaabay, rag samaantiis waa waxaadana sii, wixiisana baahi u cun. Xumaantiisana ninkii ka abaal dhaca wax ka weydiiya, isagaa iga aqoon badane. Dadkii ayaa weydiiyey, ka warran samaanta iyo xumaanta dumarka. Siyaad ayaa ugu jawaabay, dumar samaantood waa u samir ama ka samir, xumaantooduna ninkii labada fiidcow la tirsada wax ka weydiiya, isagaa iga aqoon badane. Dadkii ayaa weydiiyey, geela samaantiisa iyo xumaantiisa ka warran. Siyaad ayaa ku jawaab celiyey, geel samaantiisu waa korkiisa ha kaa qarsanaado, koortiisuna ha kuu yeerto. Xumaantiisana ninkii 3 jir ka rartay 6 jirna raaciyey wax ka weydiiya, isagaa iga aqoon badane. Dadkii ayaa mar kale su'aalay, ka warran lo'da samaanteeda iyo xumaanteeda. Siyaad ayaa ugu jawaabay, lo' samaanteedu waa labada hore biyaha kula jirto, labada dambana cawsa kula jirto. Xumaanteedana ninkii 3 qadiyey ragna u dhiibtay wax ka weydiiya, isagaa iga aqoon badane. Dadka ayaa weydiiyey, ka warran ari samaantiis iyo xumaantiisa. Siyaad ayaa ugu jawaabay, ari samaantiis waa meel il bannaan leh ha daaqo, arad wanaagsanina ha xanaanayso. Xumaantiisana birin abaar ah ninkii ku furay wax ka weydiiya, isagaa iga aqoon badan. Dadkii oo dhan waxaa halkaa uga caddaatay in uu siyaad yahay nin xigmad Ilaahay ku manaystay. Maalintaana su'aalihii uu jawaabaha ka bixiyey waxaa laga heli karaa nolosha bini'aadamka meel kasta oo ay joogaanba. Dhegaystayaal, waa noo qaybteenna saddexaad iyo sheekadii abwaan siyaad dhiridhoob.